يعني gaadhigaygan ku jira anu markaan askartu meesha maraysaan waa iska qariyay laakiin dhammaan family intii kale aan maanta kadib aan meeraa anuna baxsi ayaan Luqmaan mar labaad ugu soo yimi si aan xogtan walaadii ifan madaxweynaha meel aanu marna ma jirto laakiin waxa kaliya madaxweynaha wax ugu gudbi karayna waa miid adiga xorriyadaad u baqanay aniga imka xorriyaddeedu baqanay waa dhammaan family-gayga xubniin family-go dhan hooyo aabo hablihii inamadii dhammaan way xidhayn hablaha ilmaadeerna haddii keligay baa magaaladii imka ka joogaan salaam calqadagee anigana waa la igu daray waa la xidhayaa anigii baa anigu maanta tagaan saldhig hor istaago maba dhici karaysaba in aan imika markaan kaa baxo la qaban karo ma xisaabinaayo oo ciidanku meel walba way joogaan dawdayaal saaka subaxii waxaan la socodsiinay warays ku saabsan hooyaysiin jaamac oo ka cabanisay taliyaha booliiska Somaliland Cabdideere oo ay sheegtay in dulmi uu ku sameeyeen isaga iyo xubno kale oo ay sheegtay meel ay deganeed in lagu burburiyay xalatooda oo ahayd gurigeeda Axmed ayaa ila jooga oo wiilkeeda ah Axmed goordhow waxaan soo gaarisay in hooyo iyo walaaliyo la xiray bal waran walaal Luqmaan aad baad mahadsan tahay Luqmaan meediana way mahadsan tahay walaal saaka markii aan naajiibtay lixdii iyo waxoogaa naga duubtay klibkii waad sii dayseen wuxuu noqday mid ay dad badan arkaan waxaana loo adeegsaday awoodii xalay tula awood ka daran ciidan hubaysan birmadka laga keenay oo ilaa gaadhay 45 wax noocaas adigu ilaa 45 askari way ku dhow yihiin tira aad u badan bay ahaayeen oo ku ciidanka dagaalada loo diri jiro kara adu afar xaajeedoodun waxa dhacay hooyo waa la xidhay oo macaan iyo gaas dari iyo xanuuno kale ay leedahay agaha bararay oo qof iska curyaaro daalanay badan maxameday ku jirtay aabbo waa la xidhay hablaayigi markii klibka duubay waa la xidhay inamadayadu waa la xidhay dhammaan family-ga anigoo gaari kaga jira mooyaan dhammaan intii kale gaari kaga jira ka dhaweyd waa la xidhay maxaa kaga jira يعني gaadhigaygan ku jira anu markaan askartu meesha maraysaan waa iska qariyay laakiin dhammaan family-ga intii kale aan maanta kadib aan meeraa anuna baxsi ayaan Luqmaan mar labaad ugu soo yimi si aan xogtan walaadii ifan madaxweynaha meel aanu marna ma jirto laakiin waxa kaliya madaxweynaha wax ugu gudbi karayna waa meediyahaas cid ma dhaleecaynayno cid ma caabaynayno xaqaygii baa naga maqan xaqaygaas wuxuu naga maqan yahay 17 sano ka hor sharciyadii la siiyay in maanta 17 sano kadib laga fuliyo Cabdideere meeshii imaado Cabdideere maxamadahan isku arki jirnay nin military oo gaashaan laan baha in xaaji cali markuu isla meeshii wad ka tagaysaa in waxaygi qaado naga duudsiyo oo la isku waji dhigto ilaahay baa loo waji dhigtay laakiin anaga cadaalad daraan ugu dhacday hooyada cadaalad daraa ku dhacay waxa weeyaan wadanku shuruuc buu leeyahay ya qaanuun anigu shaambada ma lihi oo loogada ma lihi oo saxiixa ma lihi laakiin waxa la dawlad baa leh dawladda hoose qaybta dhulka qaabilsanayd baa leh yadaana siisay yadaa noo fulisay yadaa maragyo makhraatiba ka waxa waraqaas fake maaha oo maanu samaysan waxa weeyaan 17 sano kadib in maanta markii awoodii gacanta u gashay Cabdideere oo family-gan saysanay inta walaaliyihiina iyo in xaaji cali oo la isku waji dhiganaya in maanta xukunna lagu soo saaro xukunka damba waxaanu ka qaadanay raafaan waxay soo saareen wax chamber la yiraahdo oo yaani dacwadii markii way nagu qaadeen waraaqi waanu haynaa chamberka ayagaaba cadeynayo ku qoray waxa jira hooyadii dacwadahaasi sida u soo socdeen dacwad baa jirtay 48 saacadood gudahood xukun fulin iyo muddaynba lagu dhameeyay waa 48 saacadood gudahood waa laba cisho isku xiga ayaa dhammaan processkii la mariyay xukunkuna wuxuu qaatay 22 cisho ka ugu yar 7 cisho qaata 48 saacadood gudahood baa wixii lagu dhameeyay marka waxay anaga waxay gacan saddexaad baa ku jirta mudane madaxweyne cidda ku shaqada leh dulmanayaal baan nahay waxaan ka dhiidhinaynaa kuugu codayna waxa ahayd inaan isbedel aragno isbedelku wali xarumihii kama dhicin madaxduna inay ku cimro qaataa jirta markaad noo timaadaan waxaad tirahdaan waxbaan wax ka bedelaynaay wax haddii laad gelisaan kursiga wata masiibadan mise dadka masiiba anu waanu kala saari laanahay waxa nagu dhacay dulmi cad ilaahayna wuxuu war hays dulminayna naftiisu ka xarimay anu kilibka labadii duhurimaan duubaynaa ilaahay baa cadaalad haya ilaahay baa la tala saartaa anaga cadaalad daraan ku xirantay waxa ku xirantay saligaan iyo hargeysa rugta kutubta haddii keligay baa magaaladii imka ka joogaan salaam calqadagee anigana waa la igu daray waa la xidhayaa anigii baa waxa xalaa inaan wadankaanba ka tagnaanba madaxweynuhu cadaalad si dhaqsaan noo soo gaarsiiyo waxa weeyaan shaarka maaha blazeka in shicibka loo xidho anigu maaha intaan shaarka soo xidho inaan blazeka iyo shicibka aan ugu hanjabo shaar waxa weeyaan maanta janabku wuxuuna tusay awoodda shaarka shuruucda qaranka anu kama soo horjeedno waxa weeyaan inay dawladdu xoogaysato oo ciddii kibraysa la qabto oo amniga la sugo annagaa soo dhaweynayna annaga amniga wax ku ah laakiin shaarku noqdo shaar reeraysan shaar aargoosi shaar inaanaysan anigu waanu ka soo horjeednaa hadday hooyo xidhan tahay sidaad warkeeda u heli kartaa xidhiidhinteedii cuntoogeynteedii adigana xarig ka baqayso wallaahi waxaan u heli karayaa ma inaan dadkaa jaarka u adeegsano ciddii aan xog u dhiibi karayna naga yeelaysaan ugu dhiibno
bise inaan anigu maanta tagaan saldhigi hor istaago maba dhici karaysaba inaan imika markaan kaa baxo lay qaban karo ma xisaabinaayo oo ciidanku meel walba way joogaan marka waxa weeyaan awoodda ciidanka anagu waanu aaminsanahay ciidanku waa ciidankayga laakiin maaha awoodda ciidanka in si shaadhaysan annaga lagu hanjabo oo lagu karbaasho adiga xorriyadda aad u baqanay aniga imika xorriyaddeeda u baqanaya waa dhammaan faamligayga xubniin faamligoo dhan hooyo aabbo hablihii inamadii dhammaan way xidhan yihin hablahaan ilmaadeernahay waxaa lagu xidhay goobtay joogeen dee wax weyn dad dhulkoogii laga qaaday hooyo may kici kareen bartiba dee macaankaa ku kacsanaa iyadoo meel baa loo dhigay caw oo adiga saaka waraysi kaga qaaday iyadoo bartii fadhidaa lala booday oo macaankii dee ku kacsan yahay boodka waarin ma siteen wax ma siteen maxaa sababta walaalo iyo wax waarin ma jiro dowladnimada marmar baa soonaysaa magaca dowladnimo waynu sheeganaa warqada annaga looma keenin la leeyahay meesha filim baa kusoo baxday waa inaad muddadaas 3 cishaa kaga guurtaan waa inaad maalin kaga guurtaan waa in hantidayadii iyo waxaygiiba ku baaba'ay marka nidaam dowladeed waynu sheeganaa maynu gaadhin waxa weeyaan qofka bilaadanka filinaa soo baxda amba qeyr sharci ku soo baxda amba xaaraan ku soo baxdo waxa wanaagsan warqadaas soo baxday waa inaad 2 cisho 3 cisho ku banaysan annaga cidna la soo xidhiidho tiri baneeya ma jiro afartii habeenimo hooyo way dhex jiifsadeen daayaga naftoodii baaba ku bixi gaadhayba meeshana saaka wada arkaysa siday ahayd kiliib laga duubay baanu haynaa dee waxa weeyaan wax loo naxariisan karo meesha kamay dhicin aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal wixii warar ka soo kordha qoyska arrintoodana Luqmaan Media waa idila socotinaysaa waad mahadsantihiin saad nagu xirantihiin walaal Axmed adna waad mahadsantahay mar kale